ku soo bir kanaalka sahanka dunida oo subscribe saar haddii aad ku cusub tahay. Assalaamu calaykum. Waxaan ahay dilaa qurux badan, dhiigna ma daadsho, in yar imaahay indhahaaga iyo maskaxdaada adigoo raali ah. Bal sawiro, ruux ayaa fadhiyay cidlo, agtiisana waxaa yaalay haraa qalfoof, dad oo tiro aan lahayn, wax aqoon ahina isuma kiin laabna. Adiga ayaa u tagay, waxaanad ka dalbatay inaad isbarataan. Ogolaansho kadib waxa uu kuu raaciyay shardi ah haddii uu isdhexgalkiinu dheeraado, waxaan isu bedeli doonaa laba midkood. Waa inaan noqdo ruux aad ku qasaarto, noloshaadana lid ayaan ku noqon doonaa. Mid ayaan kuu kala dhigi doonaa ilaa oo aan anigu la wareego noloshaada oo dhan. Waxaanad ka mid noqon doontaa dadkaasi ugu xeeran ee dhintay, ama ruux aad ka dheefto oo aad ku liibaanto. Haye ayaad warcelin ugu dhigtay, waanad aqbashay shardigaas. Waxaanad go'aansatay inaad barato oo aad ka gungaarto sooyaalkiisa nololeed, balse waxa uu kugu soo gaabiyay, waxaan ahay dilaa qurux badan, dhiigna ma daadsho, waxaanan jiraa kiina aqliga leh inta ugu yar ee uu jiro. Adiga oo faraxsan ayaad tiri, ii kordhi macluumaadkaaga. Laba waji ayaan leeyahay, mid wanaagsan iyo mid xun. Si keyga xun ayaa ka qurux badan keyga wanaagsan. Ku dhawaad 12 sano ka hor ayaan dunida ku soo biiray. Hadafkeyguna waa inaan dunida oo dhan la wareego anigoon dhiig daadin. Ogow, dadka ayagu baa iraasado ee anigu cidna ma doonto, ayuu warcelin kaaga dhigay. Adiga oo xanuun badan dareemaya ayaad ku tiray, ii kordhi macluumaadkaaga. Intaas iguma filnee. Waxaan dilay malaayiin qof hal mar, leema qaban qabasho iska daaye, hal mar leegama shakin. Dadka aan dilaa waa kuwo dhaladkooda u dhaxeeya 1950 ilaa 2021. Dadka waxaan ku dilaa dadka hortooda, lamana qarsoodo dilkayga, waayo waxaan ogahay in dhiig aanan daadin doonin, ayuu ku soo afmeeray. Xanuunkii ayaa kugu ziyaaday, mana taqaanid meel lagaaga soo booday. Daqiiqadaas kadib waxaad ka mid noqotay dadkii uu dilay ruuxaasi. Barasho iyo dhimasho hal mar wada socotay ayay ahayd, balse su'aasha meesha taala ayaa ah, ma gaf ayaan kaa galay? Maxaad igu dishay? Su'aasha ruuxaasi jawaab kama bixin, balse iga dhagayso xog ku saabsan dilaaga. Ruuxaas qoyskiisa waxaa la dhahaa internet, gaar ahaan magaciisu waa Facebook. Ma tihid mid dareemi kara warmaha uu kuga saraayo iyo weliba maskaxdaada sida uu dagaalka ugula jiro, laakiin kaliya waxaad miirqab isku arki doontaa mar aad maskaxda ka dhimatay. Waqtigaagana ayuu dilayaa. Maskaxdaada ayaa fikirka joojin doonta ilaa adiga lagu fikiro. Waad dhimatay, laakiin kamaad fiirsan in markii uu shardiga kula galayay uu kuu hormariyay wejigiisa xun si aad fiijignaan ugu hesho. Maad noqon mid meel dheer wax ka eego oo waxaad u qaadatay wax sahlan. Soomaalida ayaa ah dadka ugu badan uu dilay dilaagani, iyagoo ku soo gala hab qoomamo iyo dhafoora qabsi ku dheehan tahay. Adiga ayaa ugu tagay goobtiisa ee labada shardi, kiisa dambaraac oo liibaan. Dilaagu kaliya waxaad kaga badbaadi kartaa inaadan barashadiisa ku xeel dheeraanin. Haddaad ku xeel dheeraatana aad waqtigaaga ka dheereyso halkii aad dhex maquuran lahayd. Ugu dambeyntii, adiga ayaa ah kan mar walba ka gardaran Facebooka ee gartiisa sii oo faa'iido ha lagugu qabo ama ka dheerow si aanu kuu dilin.